maxadka barashada caafimaadka ee magaalada Burco ayaa maanta imtixaankii ugu dambeeyay ka qaaday 48 arday oo ah kalkaaliyaal caafimaad oo muddo 3 sano iyo badhiganayay maxadkaasi kuwaasi oo ah dufcadii 10aad ee ka baxda maxadkaasi madasha ardayda laga qaaday imtixaanka ayaa waxa goobjoog ka ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf مسؤولين كسعودي هايدها WHO iyo NHBC iyo wasaaradda caafimaadka Somaliland ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka caafimaadka magaalada Burco Faadimo Cismaan iyadoo ka warantay maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen ardaydani maanta waxaan joognaa qalin jebinta ardayda maxadka caafimaadka Burco hal galaas oo neersana oo ah kooxdii 10aad ee ka qalin jebisa halkan tiradana kaga dhigaysa 400 iyo 45 arday oo ilaa 2008 ka qalin jabiyay maxadkan kana kala shaqeeya meel kasta oo uu qaranku leeyahay iyo meelo kale oo dibadda ah maanta waxay u joogaan qalin jabintoodii muddo hayaan dheer oo waxbarasho ay ku soo jireen 3 sanadood iyo bara waxa ka qayb qaadanaya indhaynta imtixaankooda wasaaradda caafimaadka heer qaran siduuha wasaaradda caafimaadka hay'adda WHO iyo hay'adda ilaalinta tayada NHBC oo dhamaantoodba ay dadka ilaaliya ama la socda waxbarashadooda iyo quality-ga ay ku soo baxayaan ama in la gaarsiiyo heerka caalamiga ah ee laga doonayo qofka noqonayo qof u shaqeeya adeegaha bulshada xagga caafimaadka runtii waa dad aan ku kalsoonahay imtixaankan waxa weeyaan tijaabadii ugu dambeeyay ee inay gaadheen heerkii laga doonayay ee ay qof xanuunsanaya u shaqeyn lahaayeen ardayda waxaan leeyahay hambalyo ilaahay ha idinku guuleeyo 48 arday oo inama iyo hablaba isugu jira dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda WHO iyagoo ardayda dardaarno kala duwan la wadaagay una rajeeyay inay ku guuleystaan imtixaanka sharaf weyn bay noo tahay inaan maanta halkan kala soo qayb galno qiimayntii ugu dambeysay 48 arday kalkaaliyaasha caafimaadka ee ka qalin jabinaya maxadkan runtii waxaan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa si fiican dhinaca theoretical iyo dhinaca practical ba si fiican bay wax soo barteen sidaan warbixinta ku helay iskuulkana runtii waan baarigayaa wax badan arday badan oo waliba aqoon la ayuu soo saaray 48 arday oo nursing oo qalin jabinaya wajiyo ka muuqata ilmaha qofna inuu harayo ma sha Allah guulo waalidiin rajeynaya dhamaantiin niyadiinana u sheega wax fiican anagu wasaaradda caafimaadka nahay waxaan nahay qacantan marka dambe insha Allah ku dambeyn doontaan haday shaqaaleysiin noqoto iyo haday tayisiin noqotaba waa stage-kii koobaad waana wax soo saarka iyo wuxuu ku faari doono dalku iyo wasaaradda caafimaad ahaanna waa dadka lagu tashanayo mustaqbalka aad baan idin hambalyeynaya farxad weyn bay maanta inaan ka qayb galo ardayda u fadhiisanaysa imtixaankan ugu dambeeyay iskuul nursingka Burco ardaydaas aan ka filayo wax badan inay ka bedeli doonaan heerka caafimaadka cusbitaalada iyo adeegga ay u hayaan dadkooda insha Allah taala qof walba waxaan kula talinayaa insha Allah taala inuu marka uu qalin jabiyo oo skillska xirfadiisa horumariyo iyadaan noqonin iskuulka magaciisa iyo idinka aqoontiinu haysi yeeshaan waxaan kala ka ballan qaadayaa maadaama tahay ardaydii koowaad la kulmo 5 arday ee exaamkooda ugu sareeyo inaan meel saaro hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah taala inaan meel ku qoro insha Allah taala Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco